adduunyada ilaahay waxaa foolxumo ah gabar Soomaaliyeed maanta 2025 la jooga inay isgubto ama ay isdaldasho because family iyada ay ka dhalatay dhibaato ay ku sameynayaan. gabadha marka hore waxaa loo dhalaaba inay shaqaale ahaato, inay guriga hagaajiso, inay raashinka kariso. Okay, intaas ha samayso waa dumar. dan haddana maxay samaynaysaa? waxaa la leeyahay naya wiilasha qolkooda galoo soo hagaaji, naya dharkooda dhaq, naya dharkooda feeray, naya dharkooda xaray, naya raashin ku gur, naya maxay heeto ii sheegayna faraxalka geey. oo ninkan waaba nin rag ahbe ma gabadha hadday kariso alaabta muu dhaqo, muu gurigiisa hagaagsado, muu dharkiisa dhaqdo. waa nin raga kushiinka ma galo. waa dhaqan xumada Soomaalida ay leedahay. idaa tudla calayhi aayatuna qaala asaadiirul awwaliya. war waxaan jaahilnimada ku jirtan waa maxay waxaan asameeynaysan? diinteena ma ogola markaa tiraahdo wixii ku leeyihiin awoowayaasheeni baa ku dhaqmi jirabe. waaba dhaqanka awoowayaasheeni ay ku leeyihiin. jaahilnimo meesha laga gaaray. gabadhi marka wixii isku day inay reer yeelato ninkii ka hor yimaaday dalaq ay leedahay. dalaq markay dhahdo awlaadu ka dhala wuu ka tagaa, naanaga tag raaso anaga kaama dhaline. ama asigooba la joogaba u leeyahay naya anaga kuu sheega ya ilmahan ayaa iga aamus buuqooda. adigu dhalmiya naya ilmaha buuqooda iga aamus, ilmaha iga aamusiso sidii ilmaha inaa meel kale ka keento kale. gabadha aabaheed markay aaba tiraahdo uu yiraahdo kuma dhalin, asiga responsibility ka gubitaankaas. tan labaad, ruuxa markuu isgubayo yacni ruuxa diinta si fiican u bartay ma noqonayso. because diinta markaad baratid diintu waxay kuu sheegaysaa naftaada markaad adiga gubtid adigoo adduunka isku ciqaabtay oo adiga nafsadaadii aad haligtay oo dishay. secondin markaa aakhiradaada aad tagtid nafsadaadii inay ku dacweynayso ku leedahay waxay ii goysay yaa allah bal sheeg bal qoftaan cadaab leena adduunka silacada isdisho silaca isku dishay. allahumma najayna aakhirana cadaab lee kaa horeyso because ruux nafsadiisa dilay oo nafsadiisa daldalay oo la dhahay maxaa la januu galaa kitaabkeena quraanka kuma yaalo. laakiin haddaad adiga sabab aad u aheed iyana iimaan aysan lahayn adaas responsibility ka iyada ruuxaas isdilay asigana mas-uuliyadii u qaadaa, waalidkiina adigana mas